السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idinku soo dhaweynaa daawadayaal TV-ga 1B3 TV. waxaan kaloo idinku soo dhaweynaa barnaamijkeenan oo aad hore nooga barateen barnaamijyo aad iyo aad u xiiso badan. barnaamijkan waa barnaamij ka mid ah barnaamijyada aan idiin soo tabino. barnaamijkan waxaan ku wareysanaa dhalinyarada ama aqoon-yahanada waddanka Somaliland iyo weliba shacabka weynaha. maanta waxaan wareysanayaa Maxamed Cali Galle. Maxamed Cali Galle waxa uu ka mid yahay dhalinyarta reer Hargeysa. Maxamed Cali Galle waxa weydiinaya aragtidiisa khaasaad ee uu ku qabo dowladda Somaliland. Maxamed, sideed u aragtaa dowladda Somaliland iyo jiritaankeeda iyo jaalasha mustaqbal? marka hore cabsanaad baad u mahadsantahay. waxaan kaloo mahadcelinayaa TV-ga 1B3 TV. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa halkan ay kusoo martiqaadeen. xigta haddii cabdisalaan su-aashaada ka jawaabo, Somaliland sida aniga farada ila muuqato, Somaliland waa dal hana qaaday, waa dal yacni horumar iyo nabad ka jirto. aan si lagu tilmaami karin dowlad ka jirto, laakiin kala dambeyn iyo dastuur iyo hab iyo nidaam leh. caalamkuna dee oo dunidoo dhan dee yacni ma wada aqoonsana, laakiin dal dee yacni jiritaankeedii kala dambeynteedii nabadeeda oo ku jirtaa. laakiin Somaliland laguma tilmaami karo dal dowlad ah oo dhisan inay tahay. insha Allah waxaan rajeynayaa inay noqon doonto mid dhisan. Maxamed, waxaan u maleynayaa waxaa yaarsan inaan su'aal ku weydiiyo. waxaa jira duruufo fara badan oo ku soo wajahay Somaliland. sideed u aragtaa duruufahaas sida biyaha, leyrka iyo shaqo la'aanta? Maxamed, sidaan anigu cabdisalaan warto aad iyo aad baad mahadsantahay. su-aashaada haddii aan ka jawaabo, sida duruufahan haysto kale waxyaabaha ka mid ah haddaan tusaale ahaan soo qaato waa sida biyaha oo kale. biyaha duruufo badan baa naga haysta, baahi badan baa naga haysta, dad badan baan helin, dad badan baa aan macna soo iibsan karin oo Somaliland ka mid ah. Okay Maxamed, duruufahaas waa lagaga bixi karaa? waxa lagaga bixi karaa horta sida run ahaantii xukuumadda Somaliland hoggaanka biyaha iyada u haysa. halkaa raygan waxaan ka qabaa haddii shacabka Somaliland yacni xorriyad la siiyo inuu shacabka ka feyn lahaa biyo la'aantan oo laga bixi lahaa nin kastaba mashruucaad furi lahaa. biyaha markaa laga habqatin lahaa dadka danyarta iyo dadka kalaba baahidooda biyaha markaa laga gudbi lahaa. laakiin imika san aragtideeda u arko biyaha waxaa inoo soo dhacaan dowladda iyadoo isla markaasna ashantii cisho hal mar soo dhacaan. baahidaasaa duruufaha keenaysaa. marka anigu waxaan qabaa dowladdu inay arrinka ka fikirto oo ay ka dhigto waxyaabaha biyaha iyo ay la mid yihiin in ay dee ganacsatada businesska waaweyn ay usoo bandhigto isla markaana ayagu si ay usoo saaraan dee biyo magarasa mool dee magarasa meel kasta u helaan. Maxamed, xagga leyrka waxaa jira leyrka dowladdu inaanu gaadhsiisnayn dhammaan magaalada Hargeysa khaasatan. inta badan Hargeysa waxaa ka shaqeeya leyrka private-ka. taasna dowladda maxaad ku dhiirigelinahay? horta cabdisalaan aad iyo aad baa mahadsantahay. maadaama ay wixii xukuumad tahay, maadaama ay baahiyaha kale badh aanay dhammaystiri karayn, aniga raygayga waxay la tahay taa leyrka in ay boqolkiiba 80 aad iyo aad Somaliland ugu fiican tahay. sababtoo ah leyrkeenu aad iyo aad u fiican yahay. dowladdu yacni meel wanaagsan bay ka wadaa. laakiin waxaan lahayd xukuumadda Somaliland inay intaasi ballaariso sidii ay yacni qaybaha Somaliland ee kalena ay saasoo kale uga dhicilay sida Hargeysa kale uga socoto, sida iskaashatadan imka kaahoo kale. yacni haddii saa la soo kaashada ama businesska waaweyn iskaashan lahaayeen, yacni rayga waxaan qabaa inay meel kasta guul laga gaari lahaa. ta kale xagga businesska haddii aan kasii wado, imka waxaa jira cabdisalaan shirkado ganacsata kambaniyo yaryar, isla markaana waxay u dhigantaa kambaniga yar kambaniga weyn inuu haddii uu dhaho dee magaranaysaayay ganacsi la galin oo dee kambaniga kicin karo. marka waxaa fiican ama qaybta leyrka ka ahaato ama qaybta businesska ka ahaato in la iskaashado, markaas guul la gaari karaa. markaa sidaa daraadeed intaasaa su-aashaada kale cabdisalaan walaal haddii la ka ahaado aan kusoo gudbinaya. Okay walaal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد، sideed u aragtaa علشان مشروعية Somaliland dowladda Somaliland ee filayso sida wadooyinka, dhismayaasha dowladda iyo waliba hantida dowladda? aad baa mahadsantahay cabdisalaan. haddaan qodobkaaga saddexaad ka soo jawaabo walaal, xagga dhismaha wadooyinka haddii aan wax ka dhaho, dowladdu horta marka ugu horeysa xagga wadooyinka aad bay uga liidataa. xigta haddii wadooyinka iyo dhismaha Somaliland ka socda Taarigaabo, ta Oodweyne, ta wadada cad, ta Balagubadle,
anigu waxaan ra'yigayga oran lahaa waa in shirkad madax bannaan oo mashruucaada qandaraasa shirkad yacni wadooyinkii dhismaha samaysa mashruucaas la siiyo isla markaana imika maxaa wada la dhisaa dowladdu wax yar bay saaraysaa wixii gaadiidka maraya way jajabayaan dabagal ma laha waxba ma laha wadan sameeyay weeye dadkina wada la sameeyay weeye laakiin haddii cabdisan la sameyn lahaa walaal yacni shirkad wadooyinka u qaabilsan Somaliland isla markaana ordad waxa la jira ordadkaas dawladdu ma dirata dawladdiina ordadkii way daba galaysaa ordadkii ka soo jeeda taa waxa ku tilmaami karaya inaanay daba galaysa dawladnimo ahayn laakiin rayiga waxaan lahaa shirkadaha iyo dhismaha waa in loo daayaa shirkad iska gaara oo shirkadda dhismooyinka Somaliland oo private ah isla markaana baarlamaanka ordad u diro ordadkaasi baarlamaanka hoos tago sida caalamka dawladaha adduunka kale baarlamaanka iyaga ordadka dirta iyaga hoos yimaada markay baarlamaanku helaan maxkamad madax bannaan weeyaan laakiin imka cabdisalaam walaal arigaas ordadka imka dawladda dirata dawladina waa loo diraa wax ka macni ma jiraan marka waa in aynu waxa ka dhismaha xoolo laha dawladda laga wanaagsan waa in shirkadaha siiyaan dhismaha wadooyinka Somaliland shirkadahana ordad daba dhiga meelka iyo dawladaba iyadoo baarlamaanku daba dhigayo demoqraasiyay oo amro haysto isagoo isla markaana baarlamaanka higsanaya maxkamad madax bannaan cabdisan taas waxay tahay in ay demoqraasiyada dawladnimo aan jirin baarlamaankuna uu soo gaabiyeen dawladuna demoqraasiyada imka maxkamada oo kale dawladdiiska ay iska soo timaada demoqraasiyada waxeedii way iska wadataa hadii wasaaradda tawxiidii waa iska shaqsanaya meel kasta wixii amro marasiinaya waa dad ku meelay dawladaha jiriyo wasaaradaha jiriyo waxyaabaha wax lagu dhaqmayo ma jiro ordadku dawladdu ma ka socdaan cabdisan arigaas intaan ka baxayo diraalada dirayga اوكي محمد عن كنت نقولتي قبل برنامجك آخرة waxaad kula talin lahayd bulshada iyo dawladda Soomaaliland bulshada iyo dawladda Soomaaliland kala talin wax kasta oo baahi oo Soomaaliland ka jira oo idanka fiinkareen ama aad ku imanaysa yaraani ama waxyaabo cidii ka fiin karteen oo soo bandhigaan ayaan jeclay iminka sida biyaha oo kale ama garanaysa wadooyinka oo kale waxyaabahaas oo kale ganacsatada weyn oo ka fiin kareen leen way hagaajin karo sidii dawladdu wada ka wanaajin kara bulshada Soomaaliland waxa leeyahay horta marka soo gacan qabsanay waan iska gacan haysanaa si wanaagsan bay wax wadnaa meel bay ka wada aragnaa wax meel bay ka wada duulaa halkaas aynu ka sii wadanaa hawlihiina ka sii qabsanaa hadii la raaleeno hado intaas aan cabsana ka baxay hadii la raaleeno ka hado